warkii huwanaa dhiilada xun ee shalayta soo hoobtay ee halista weyn sheegay iyo baabi iyo hooga maatidii halkaa lagu dilay laabtu ii horeeye tacsibaan hawada u marin intay hooyatay ruuxdoodu rabbi iilka ha u nuuriyo hoyga aakhare dhaawacan ha caafiya isagaa hodan howeyni jigjigaay huqdiga ciilku waa hoy aad leedahay hanjabaad shisheeye dil iyo nacabku hiifaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونحسن داود يا الميل والبواد جوكتان كنا سود هذا channel كقرشة سريسة برنامج كان وحا إلى غرفين يو أبوان بشير وحنا كسبسين هاي دعدي دوان كدعدي قرون كا مجالات الجيجا ومسؤولين يدد شعبه عسكري كترسن إذا ماذا دلكاسي وكل هاي دعداسي tix ayuu ku cabiray aragtidiisa barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa. ugu horeyn abwaane soo dhow. aad baad mahadsan tahay saaxiibkii marran walaalkay koronto. dhacdadaas horta dhacdo naxdin leh oo murugo badan oo waxay ahayd dareenka dadka aad ku cisay aad u saameysay wax runtii xilligan la filanayay ma ahayn. marka tixda gabayga aan ku cabiray waxaan kasii horsiinayaa hadal yar oo idin jilcin doona tixda gabayga oo meesha dhibaatada ay ka dhacday waxa weeye magaalada Jigjiga garoonkeedii oo dawladda deegaanka Soomaalida waxa la yiri wax federaal la yiraahdo ka tirsantiin oo ka mid yihiin federaalkaas meesha kaliya ee uu ka shaqeeyo waa Jigjiga ee la wada leeyahay federaalka ee wax walba laga sameyn karo meel kale oo federaal ma jiro. goobaha dhaqaalaha ilaha canshuuraha eerboodada maxaan ku dhahday meelaha muhiimka oo idil macnaha ciidan buu deegaanku leeyahay federaal baa leeyahay maxaa sababay ciidan macnaha qowmiyada kale ka yimid oo dadkii say rabaan u leynaya oo saa ula dhaqmay inay joogaan goobtii laga rabay amnigooda sugaan ciidamadii deegaanka oo jooga oo heegana dadkan iyo maamulkan dawladda dhexe ee Itoobiya federaalka ee meeshii joogto u kala dhuumanayna inay macnaha dad iyaga ay daciifnimadooda ay sabab u tahay in maanta wiil yar oo buurleyda ka yimid uu dadkooda ku laayo shacabkooda ku laayo garoonka magaalada inay daciifnimadooda sababta waa horjoogayaal waa uu amrisa iyagu sheeganayaan inama dooran waa la keenay oo gacanta la wada la keenay laakiin iyagu si yaqaanaan marka mas'uul bay ka yihiin. marka tii saasi cabiraysa waxa kale oo eray gabayga ku jira wuxuu noqon doonaa haybsooca marka aan kaga hadlay doono gabayga waxa weeye kelmadda haybsooca waan ognahay Itoobiya waxaan ahay inay tahay anaga Soomaaliland waan ognahay dadka macnaha wali Itoobiya macnaha Soomaalida ay dawladda Soomaalida waa dad Itoobiyaan oo Itoobiyada ay xuquuqdoodii ay helayaan dadka Itoobiyaanka aaminsan dadka Itoobiyaanka xuquuqdooda helayaan oo kale inay helayaan dadka aaminsan ka dhaadhacsantahay waxaas yaan u sheegayaa macnaha iyaga laftirkooda Itoobiyaanimada aaminsan in Itoobiyaanimada xataa lagu sii haybsoocayo يعني مش أنا إسكو هاي بهم وانوه ما كت قبل يقول يسوي شرط تعسي يعني ما حاس عن شيء أو قابن وركي هو أنا دي لذا حنا شرط الصوف هبطي هالستوين شيء يبابي يهوجا ما تدي هالك لجود دي لابتو يهوري تعسيبان هو ذا أمر أنت يهويته روح ذو ربي إلك ها نوري هوي آخره لا وعنها عفي سجا خذن هوين تجي هوق ذي عيلك وهوي الله ذا hanjabaad shisheeye dil iyo nacabku hiifaya cadaabuhu siduu kugu habsaday kaama ay hadhin haradii ka buuxaa tiyo horarka waankii dhargigii hulale bixiya halaqi xuub sibtay hambadii wayaanaha iska tagay haydna kala nooca hootii waxay kula dhiceen waran haliilaya wixii hogal daruuro colaadkaa dul hoganays huwan buuraleeyahay waxay hanaqa ruux goysay hog wixii barbaar lagu riday hooyo kor u oyday halkii shalayta kala guurkii dhacay hanaqii loo taagay hadruyeenu qaru ahaa riyo habeenada har cadtii shalay Jigjiga dhacda ku hubsiimaa huraalaki bis dadku hol caleefsiye hooyooyin madax iyo wixii shacab halka yaalay burgumada inay wali jirtay ugu tusaalayne hadduu ku dhardar kala bedelo waa halkii hore haatan saanuna Allah ka dhigan kii hurdo wali hadduu ku dhardar kala bedelo waa halkii hore haatan saanuna Allah ka dhigan kii hurdo wali mid waliba ilbu kugu hayaa hoosta ka nacib idina wad u hogataan sidoo awr hogaan baray haybsooca kamid dhidaan waadna hurdaane kuwa idin hor joogayna kana hiil magalayaani hadduu jiro isbedel ama daruur qolo u hooreysa jiilaalka horciisi waa wali halkeeniye wax kasto filkeen hiifay baa lana habsiiyay waa dirqi baa lagu liqsiyaa wuxuu asaageen diidoodan hadba kii adiis jooga waad hoos orordaane hor jooguhuna shaw waa safiir hawlgal loo diray hor joogo walba oo meesha jooga waxaad moodaa in ay sababay ay safiir uga yahay deegaanka Soomaalida oo iyaga wakiil uga yahay danta shacabka inuu ka shaqeyn lahaa
hortooguna soo waa safiir howlgal loo diray ay kolba kii halkaa tagay adeec buu la soo hooyeen ay isagoo nacam leh okay shacab hoos u wada foororiya maamul hoganaya ay aqoonyahan hansara aan lahayn iyo aqoonyahan hansara aan lahayn himilo dheeraada odayaal hanjabay oo ku jira weli huluushiiba intaad heerkan liitiya tihiin wada hadhayaasha Soomaaliya halkaa waad fadhi hol cajiilaali hola cajilaale marka inta dadkan uu isku tashanayo isagoo mida uu federaalkan la sheegay aanu ma garanayo wuxuu federaalku yahay dadka sanka lagu sanduleynayeen in la weydiinin xaqi bal wixii lagu lahaa dad cid ka soo qaada la helayo halka waa la fadhi ahmar baa kulay garoonka dhisay dadka ama askari kale buurleyda ka yimid buurleyda waxaan ka wada dadka Ethiopia magac la sameystay anaga noolay dusha naga saaray xoog ku haystaan kala aan ka wada buurleyda way dhici dad kuwa kalena waa la layn gabdhihiina waa la kufsan waxoogaa yar nabadeed ku hurdaan macnaha hadeedan xaqi aydan lahayn ku doon inta nabad haysaan hadii waxaad ogaataa inaan taan lidin ogolaan doonino qof kasta waxaan gaar ugu tacsiinayaa eheladii ay ka geeriyootay xildhibaanadii uu sida gardarrada dadkii loogu laayay kamid ahaa iyo shacabkii kale ku garabgeeyay oo ku agteeda ku waxyeeloobay ku wax dhintay iyo wax dhaawacada ilaahay waxaan naxariista uga baryaa intii dhimatay janno gabigan waan ugu tacsiyay inta dhaawacan ilaahay booga dhayo marka gabigu arrintaas ku saabsan yahay arrintaas laabta ay horisay oo gabigan aan ka tiriyay garashada sareysana waxaan leeyahay kala socda kolba dareen weyn oo murtaxan garashada sareysa naqbay ku garqaaday gablan badownimo way ku ridi godad ninkeedii hey dardaaranka iyo fariinta garashada sareysa waxaan ugu talagalnay tacsida dhacdadii ka dhacday magaalada Jigjiga inta dhaawacana Allah waxaan uga baryaynaa inuu noo caafiyo inta geeriyotana Allah u naxariisto tan iyo kulantideeni dambe barnaamijka xiga waa Cabduqaadir Koronsi abwaan Bashiir oo idin leh sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.